waxaan rabaa guud ahaan inaan u mahad celiyo saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwanaa runtii howlgalka halkan ka dhacayay amba operation halkan ka socday qayb ka ahaa waxaan leeyahay runtii aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin runtii waxaad gudateen waajibaad aan u qaadna qarankeena aan u qaadna ummadeena aan u gashanay dareeska aan maanta ku jirno una dhaaranay xaqiiqatanka waxaan dhihi karaa runtii guul la gaaray tan ugu horeyso tan ugu dambeey doonto idanka Ilaahay waxaan rabnaa in ay hore u sii socoto la dagaalanka iyo dabargoynta nimanka argagixisada ah wax kale maantay runtii lagu la tacaali karo oo waxa aad hadda kula tacaasheen aan ahayn uma jiraan option kale iyo choice kale haddii aan u hayno waa u keeni lahayn laakiin aqliyadoodii ayaa intaas noqotay ummadda Soomaaliyeedna dabcan maanta kadib siima dul saarnaa karaan wax allaala iyo waxay u geysan karaan oo bini'aadmi inuu sameeyo aan u banaanin way u geysteen ummadda Soomaaliyeed haday noqon lahayd diigooda haday noqon lahayd sharafkooda iyo cisigooda haday noqon lahayd naftooda iyo maalkooda wax ay u lahareen ummadda Soomaaliyeed ma jirto waxaa la socotaan runtii madaxweyne iyo wasiir iyo guud ahaan maamulka qiimaha badan oo qof walba mansabkeeda dabcan aan ku xusaayo xaqiiqatanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in muddo nimankan argagixisada howlgalla ayuu kula jiray sanadihii ugu dambeeyay deegaano badan dadku waxa laga yaabaa inay fiiriyaan ilaa intee la xureeyay laakiin waxaysan wali dadka Soomaaliyeed aysan fiirin cadawga sanadihii ugu dambeeyay maxaa gaaray saaraha gaaray intee la ekaayeen muddo 2 sano ilaa 3 sano ah aan soo dhaafnay al-shabaab goob ay ku dagaalamin ay guul kala noqdeen ma jirto waxa haddana Ilaahay mahadiisa in maanta dadka Soomaaliyeed ay garwaaqsadeen oo ay fahmeen wax la sii fiirsan karo inaysan ahayn haddii aanay naf ku badbaadin oo aanu maal ku badbaadin oo sharaf iyo cisi aanay ku badbaadin oo wax ku dhowrsano aysan jirin maba garan kara wax hadda dadka Soomaaliyeed waqtigan inay ku soo gaarto maba ahayn laakiin Ilaahay baa mahad iskale dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo maamulada dawlad goboleedyada runtii in ay maantay dabcan bulshadii iyo qarankii dawladii dhaxaba dhammaan in bulshadii aan kala harin dhinac kastay tahay ay ka go'an tahay inay nimanka la dagaalamaan dabcan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu sii wadi doonaa dardargelinta iyo xoojinta howlgalladaas waxaan Allah subhanahu wa ta'ala naxariistiisa janna uga baryayaa guud ahaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenada alifleyda dableyda runtii ku shahiiday howlgallada kala duwanaa ee dalka ka socday inta ay ku jireen inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay Ilaahay caafimaad ha siiyo meeshaan dabcan hadal badan uma baahno just kaliya waxaan ku soo koobayaa dhammaan in allaale iyo inta ka qayb qaadato qof walba kaalinta ay ku leeyahay deegaankan inaan hadda maanta isugu nimaado aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin waxaan dabcan rabaa inaan uga mahad celiyo saraakiisha iyo saraakiil xigeenada dabcan guulaha ay ka keeneen dagaalka nimanka argagixisada lagula jiray halkaan ciidan badan fadhiya waxa aydan runtii xusid mudan waxa halkaan nala jooga magaalada Muqdisho ciidan ka soo baxay oo hadda inta noogu yimid ayaguna inaan Dhuusamareeb ka soo baxno aan sana dhaqanimada ma ah halkaan inay nala fadhiyaan oo maleena saraakiisha dabcan konfoygaas waday saraakiil iyo saraakiil xigeenno aad u qiimo badan oo magaalada Muqdisho ayaguna ka soo kaxeeyay gaadiid iyo qalab ay ciidankaanu lahaayeen oo dhulka si nabad ah ku soo maray waxaan maleynaa waqti u dambeysay inaysan dhaweyn waqti u dambeysay inaysan dhaweynaan fila kaliya intaas ma ahan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala ayadoo dhammaan wadooyinka ay furmaan oo dadka Soomaaliyeed si nabada oo aan cidna uga baqayn oo qashqashaad la'aan oo cabsi la'aan oo walwal la'aan ay wadooyinka soo mari doonaan hadii Ilaahay yiraahdo wadadaan hadda weyna isku xirtaa meesha la yiraahdo caasimadda Galmudug Dhuusamareeb iyo magaalada Beledweyne waxaan ognahay bil ka hor sida ay ahayd iyo maanta sida ay tahay idanka Ilaahay waxaan rajaynaa nafiskaas iyo muxuu ahay ii sheeg naruuradaas in ay gaarto dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan way naga go'an tahay dabcan waana sii xoojin doonaa mar labaad waxaan ku soo gabagabeynayaa uga mahad celinayaa dhammaan saraakiisha saraakiil xigeenada qiimaha badan iyo askarta alifleyda dableyda runtii qaybta weyn ay howlgalkan ka qaateen
waxaan isleeyahay madaxweynaha stateka oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo dhammaan maamulka waxaan rabaa marka madaxweynaha iyo gobernatooraha gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo wasiirada iyo dhammaan xubnaha halkan nala jooga waxaan codsana dadka Soomaaliyeed qof walba gurigeeda inay waardiyaysato waajibay ku tahay nafteeda iyo maalkeeda inay waardiyaysatana waajibay ku tahay marka laga soo tago shaqada guud ee ciidanka u taala haddana muwaadinku sharafkiisa inuu ilaaliyo oo ka qayb qaato laftirkeeda amnigiisii wax saaran waxaan rabnaa marka sida deegaanada badankoodba hadda qaybo kamid ah ka socota deegaanadana taasoo kale inay noqdaan oo abaabulkaas oo kale uu yimaado